السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta walaalayaal waxaan inoo wadaa qiso ka mid ah qisooyinka cajiibka badan ee dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa ka mid ah qisooyinkooda. qisadaas waxaa ka sheekeeyey Malik ibn Dinar ayaa ka sheekeeyey. wuxuu lahaa nin saaxiib ah oo Saalex la yiraahdo. wuxuuna ku yiri Saalaxow igu soo kala beritoole subaxii igu soo kala qabuuraha aan aadne, sababtoo ah waxaan la ballamay koox saaxiibaday ah inaan booqano nin la yiraahdo Abi Juhayr Mascuud ad-Dariir. Abi Juhayr Mascuud ad-Dariir waa nin macnaha la dhihi jiray Abi Juhayr, waxaana la yiraahdaa Abi Jubayr. Abi Xumaydna waa lagu tilmaamaa sidoo kale. ninkaas oo ahaa nin indhoolo ah wuxuu leeyahay waan ku soo kalahay sidii waqtigii ballanka ahaa ayaana u imid. waxaa la joogo Muhammad ibn Wasic, sidoo kale waxaa la joogay Thabit al-Bunani, sidoo kale waxaa la joogay Habib al-Ajmi. markaasa waxaan ku iri buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay maanta arrin farxad leh ayaad igu yeertay. waan baxnay annagoo aadayna u soconno Aba Juhayr. Malik wuxuu ahaa buu yidhi markuu meel soo maro, goob markuu soo maro oo nadiif ah, wuxuu dhihi jiray Thaabitow meeshan kaali ku duko. inuu ku markhaati kaca ayaa laga yaabaa, goobtana ku tukanayso inay ku markhaati kacda ayaa laga yaabaaye. sidaas ayuuna ugu dukan jiray. Thaabitna marka uu meesha uu dhaho Muhammad ibn Malik uu yiraahdo duko ku duko ayuu ku dukan jiray. kadibna waan dhaqaaqnay ilaa aan meeshii tagnay. waxaan weydiinay Aba Juhayr aaway. waxay nagu yiraahdeen hadeer ayuu soo baxayaa oo salaad ayuu mar dhow soo baxayaa, ay wax yar suga. waan sugnay, waa uu soo baxay asaga oo nin kale uu gacanta wada ayuu soo baxay ilaa uu istaajiyey masjidka albaabkiisa uu istaajiyey. kadibna wax yar ayuu uu sugay, masaajidka ayuu galay, markaasuu dukaday. ma sha Allah, intuu ilaahay doona ayuu dukaday. kadib salaadii ayuu joojiyey. waxaan rabaa salaadii ayuu aqimay, markaasaan la dukanay. markii uu salaada dhamaystirtay u dukaday, xogaaya ayuu fariistay sida qof murugaysan oo kale. markaas qoladeennii dadkii saaxiibada isla socday ayaa marba mid u tagay. waxaana ku hormaray Muhammad ibn Wasic. markaasuu salaamay. Muhammad ibn Wasic ayaa ku hormaray, dabadeedna waa uu salaamay. salaantii ayuuna ka radiyay Aba Juhayr. wuxuuna ku yidhi kumaa tahay, allah kuu naxariiste. markaasaa wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin reer Basra ah, rajulun min ahli al-Basra. markaasa wuxuu yidhi magacaa. markaasa wuxuu ku yidhi Muhammad ibn Wasic. wuxuu yidhi marxaban bik, soo dhawow. ma anta alladii yaquulu haulaai alqawmi annaka afdaluhum, ma adigaa midka ay dadkan leeyihiin inaad tahay midka ugu fadliga badan. markaasa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddii aad arrinkaas aad shukrigeeda la imaato, yacni waa arrin aada u wanaagsan. markaasuu yidhi fariiso. waan fariistay. Thabit al-Bunani ayaa istaagay, markaasuu salaamay. markaasa wuxuu ku yidhi adigu kumaa tahay, allah kuu naxariiste, kumaa tahay ayuu ku yidhi. markaasa wuxuu ku yidhi waxaan ahay Thabit al-Bunani. markaasa wuxuu yidhi soo dhawow Thabitow, soo dhawow. markaasuu wuxuu yidhi adiga miyaa midka ay leeyihiin dadkan saaxiibada, midka ay leeyihiin waa midka ugu salaada dheer oo waqtiga ugu dheer salaada ku jiro. markaasaa wuxuu ku yidhi arrinkaas waa arrin aan aada ilaahay uga tamaninayay. markaasaa waxaa istaagay Xabiib, markaasuu salaamay. markaasaa salaanta ayuu ka qaaday, dabadeedna wuxuu ku yidhi kumaa tahay, allah kuu naxariiste. markaasaa Aba Juhayr wuxuu ku yidhi Aba Juhayr ayaa wuxuu yidhi kumaa tahay. marka Xabiib wuxuu ugu jawaabay Xabiib ayaa la yiraahdaa. wuxuu yidhi soo dhawow. ma midka ay dadkan sheegayaan inuu yahay qof ilaahay aan shay weydiisanan wax ilaa oo ilaahay waxa uu weydiisto uu siiyo. qofka wax walba oo ilaahay weydiisto uu siiyo, ducada laga ajiibo, midka ay saaxiibada leeyihiin ma adiga. markaasaa wuxuu yidhi ilaahay maad weydiisatid arrinkan inuu kuu qariyo, ah fadiiladan aad leedahay inuu ilaahay uu kuu qariyo, ilaahay maad weydiisatid. wuxuu yidhi fariiso, allah kuu naxariiste. gacanta ayuu qabtay, markaasuu garabkiisa fariisiiyey. kadibna
maartay waxaa istaagay Malik ibn Dinar markaasuu salaamay markaasuu salaanta ka ajiibay kadibna wuxuu ku yiri kuma tahay Allah ku naxariiste wuxuu yiri anigu waxaan ahay Malik ibn Dinar markaas wuxuu yiri ma waxaa tahay midka ay sheeganayaan dadkan inaad tahay midka ugu zuhdiga badan fariisa Allah ku naxariiste waxaan maartay wuxuu yiri umniyadayda ama wixii Ilaahay ka rajeynayo waa ay dhamaystirmeen maartay markaas wuxuu ku yiri maartay يعني waxaa istaagay Salih ayaa wuxuu leeyahay waan istaagay markaas wuxuu yiri Salih waxaan ku yiri wuxuu yiri Salih ayaa istaagay wuuna salaamay salaanta ayuuna ka ajiibay wuxuuna ku yiri adiga kuma tahay Allah ku naxariiste markaas waxaan ku yiri anigu waxaan ahay Salih markaas wuxuu yiri ma waxaa tahay al-fata al-qari ninka dhalinyarada ah ee qaariga ah ayaa tahay markaas wuxuu yiri ها markaas wuxuu yiri maartay soo dhawow markaas ayuu soo dhaweeyay markuu soo dhaweeyay wuxuu yiri quraan igu dul akhri markaas quraanka igu dul akhriyay wuxuu leeyahay quraankii maana dhameystiranin wa a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim maana dhameystirin ilaa uu maartay taagnida ka dhacay kadibna uu soo baraarugay wuxuu yiri maartay igu soo celi akhrintaadii igu soo celi oo dib igu akhri mar labaad markaas quraankii ayaan ku bilaabay buu yiri markaas waxaan bilaabay inaan akhriyo وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مركز وحيري ننكي أبا جهير أها وأخيلي قيلو مركز وجه ودعي جركي سقار كمد آيا فيدمي وحاس مركز بالله بينو مارتي وعضي أو مارتي يعني عد إن آيا كصوبحي كدبنا مارتي وأصول واني وحان أرقنا إني بنفتك بحذي وسيداس أيوكو جيريودي وحان ويديني قف مارتي إهلا ما أقرب أو ماشي وكله مجرتا markaas waxay yiraahdeen waxa jirta haweenay maartay yani haweenay weyn oo qof da ah oo marmar noo timaada oo u khidmaysa ayaa jirto qof ayaan u dirnay markaas ay timid markaas waxay tiri maartay maxaa dhacay waxaan ku niri quraanka ayaa lagu aadul akhriyay markaas ayuu dhintay markaas waxay tiri wallahi waa maartay hadal xaq ah waana arin xaq ah waxay tiri yaa way qofka quraanka ku dul akhriyay markaas waxa lagu yiri waxay tiri yaa way qofka quraanka ku dul akhriyo waxa laga yaabaa inuu yahay Salih al-Qari markaas waxa lagu yiri nacam waa isaga ee maxaa ku ogeysiiyay inuu Salih yahay waxay tiri waxaan ma garanayo Salih laakiin waxaan maqli jiray Aba Juhayr oo leh haduu maartay Salih ugu dul akhriyo ida qara alayya Salih qatalani hadii uu Salih quraan ugu dul akhriyo waa uu idili doonaa markaas waxa lagu yiri waa isaga midka quraanka ku dul akhriyay waxay tiri isaga waa midka dilay maartay saaxiibkii midka dilay maartay ninkii yani aan jeclaa aan u khidmeyn jiray ninka dilay waa isaga waan diyaarinay oo markaas waan aasnay Allah u naxariiste marka walaalayaal qisadaas ayaan maartay maanta idin soo gudbinayaa qisaduna waa maartay qisa ku cibra qaadasho mudan waa qisa cajiib ah waa qisa ka hadlaysa maartay sida quraanka ay salafka ugu tadabburi jireen oo ay maartay Ilaahay ugu dhawaayeen oo quraanka ay u macnihiisa u dhuuxi jireen أنا وحنا لا يرى إن القرآن كمعني سروحنا وحنا لا يرى إن القرآن كتدبرنا قرآن وقرآن كي لكن وح إثبت لي وحاويان وهم ذينا إثبت شيء وح إثبت الإيمان كنا وح إثبت شيء معناته القرآن كي يتدبر كي سيا إثبت لي إلى أن عليه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وكتاب بركة سنة وأن محمد وصوت الجني معناته وحنا وصوت الجني لو تدبره لو مسود الجنين إلا دون كذا أما ما رتمالك كرر كي مراد ليه لسوق هذا وحلو سود الجي إنه نقض منهج حياة وحلو رقمه ونرش رجال ونقض على سود الجي إلى وحن كبرينا مارت إنه تدبر كي صحابة تدكي سوونا سنة ونسيو إلى وحن كبرينا إنه مارت توفيق دنا وفجيه ومارت يعني إلى حق ونجوه جاميه ونتصه بعض الكنا ونتصه وننجلحيه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.